السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت ماموسك يا كرامة مضوين السلامينا وقت هذا وناكسن نلو القروح بدن يا عافيمات تام بوين الرجينينا يكسر دوادا كنال كينا عافيمات كي دكتورك عافيمات كقويسك يا كليب كراينو كاغا هادلينو waxa loo yaqaano success smile waa sharabaadada dadku ay xidhaan oo xilliyada qaar sifada iyo urta ay sameynayaan ay bedelantay arintaasu marka dhinaca caafimaadka laga eegayo waa laba arrimood oo kala duwan mid kamida qofka ayaa waxa uu leeyahay cagadhidid oo cagihiisa ayaa hadii kaba buura xidho isagu marka uu sidaa u dhaqaaqaba hatta haduu meel qaboona marayo oo kabti iyo sharabaadkiiba iyagoo ay nadiif yihiin ayaa haddana isla markiiba waxa qoyaya sharabaadka taasi dabcan waxa iska sameynaysaa inay ismeelin ay abuurto oo markaas sifadii laga dareemo oo qofkii hadii uu kabaha iska bixiyo dabcan sifadii meesha ay timaado laakiin umuuman sida inta badan dhacda dayac dhinaca qofka ka yimaadana way ku timaada oo runtii qofku nadaafadiisa u daryeeli waayo haddaba sharabaadada qofku si kastaba ha u dhacaane oo markaas sifad sameeya arrimaha baa laga dheehda ta koobaad qofka in loo arko inuu sameynayo wax loo yaqaan lack of personal hygiene oo nadaafadiisa shakhsi ahaan ay hooseyso ama markaas ay dayacantahay oo qofku xagga nadaafada aanu ku wanaagsanayn salaajigeed inay dhug weyn u yeelato xilli kasta iyo waqti kasta ama nina haw ama haweenay oo gabadha haw qofka doontid baa haw oo sharabaadkaaga markaas inaad ka war hayso waa calaamad cad oo tilmaamaysa nadaafadaadu heerka ay taagantay marka bulshada dhexdeeda inaad dhug weyn u yeelato kabahaaga iyo waliba sharabaadada runtii ka mawduuceenu u taagan yahay inay markasta nadiif ahaadaan waa mid ku muhiim weyn waxay u fiican tahay caafimaadkaaga dabcan shayguna hadii uu xagga nadaafada ay ku hooseeyo waxa dilaaci kara xanuun waxa laga dhaxli karaa xanuuno dhinaca psychological iyo xanuuno dhinaca jirka ama anatomical qofka u soo weeraro oo dhinacii physiology iyo anatomiga jirkaba waxay kaga dhacaan salaajigeeda arintaas inaad ka taxadarto ayaa noo muhiima dhamaanteedba qodobka labaad ee laga dheehdo sifada ay sameeyaan sharabaadadu waxa weeyaan iyaduna waxay abuurtaa qofka inay ku sameyso wax loo yaqaano distribution oo ay ku abuurto sharafta qofku inay hoos u dhacdo sharafta qofka iyo qiyamka uu qofku leeyahay iyo miisaanka uu qofku leeyahay waxoogaa in hoos loo dhigo maadaama oo laga yaabo inaad la kulanto dad markaa iyaguna aad isku meeqaantiin oo markaa sharaftaadii ay hoos u dhacdo ayay kugu sababi karaan sharabaadada aan nadiif ahayn salaajigeed inaynu aad u weyn u yeelano waa mid muhiim ah waa laga maarmaan inaynu isku sheegno macnaheedu ma aha marka aynu wax isku sheegayno inaynu isdaliilayno laakiin waa wax dhici kara xilliyada qaar anigu aad u aaminsanahay bulshada Soomaalidu inay tahay dad aad u sharaf fiican oo sharaftooda si kasta u ilaashada nadaafadana aad ugu wanaagsan marka loo eegayo wadamada kale Afrika ku yaal haddana si kastaba ha noqotee xilliyada qaar waxyaabaha bulshada ka dhici kara ee positive-ka iyo negative-ka labadaba inaynu isku sheegnaa waa mid laga maarmaan caafimaadkeena iyo sharafteena iyo qofnimadeena wax u tilmaamay wax u dhimaya ama wax yeelaya sharafta qofka ama inuu qofku sameeyo distribution lagu sameeyo sharaftiisu ay dhacdo waa wax morally damage u keenaya psychological damage bay sameynaysaa qofkii markaa niyad ahaan buu xanuunsanaya salaajigeed ama waa la isku tilmaamaya ama Soomaal waxaaba laga yaabaa hadhowto waxa sinayay qofka ku noqdaan salaajigeed inaynu dhug weyn u yeelano oo xilli kasta iyo waqti kasta meeshaynu joogno iyo halka aynu maraynaba aynu runtii aynu dhug weyn u yeelano waa muhiim wadamada qaar sharabaadada oo runtii sifad sameeya waxa xilliyada qaar dhacdaba in qofka lagu xidho ama markaa xabsi lagu geeyo oo dhinaca caafimaadka hygiene qoliyaha dhinaca hygiene waxa qaabilsan
ay qabtaan laakiin waa wadamada inta badan sophisticatedka labashoodu ay tagtay ee ma aha wadamada caadiga ama runtii waana meelaha qaar meel kasta maaha irritation waxay abuuri kartaa inay dadka qaar ay ka cadhoodaan dadka qaar inay ka cadhoodaan waa qodobka saddexaad waxay abuuri kartaa dadka qaar inay ka cadhoodaan ama ay ku nacaan ama ay ku hiifaan ama ay ka kacaan taasina waa mid keeni karta dee nacayb oo bulshadii inaad kala fogaataan oo aad kala dhimataan saa laajigeen waxyaabaha dabcan sababi kara inaad ummadda qaarkood ay ku hiifaan ama ay hoos kuu dhigaan sharaftaadana wax u dhimaysa caafimaadkaagana wax taabsiinaysa maadaama ay ka mid tahay nadaafadu waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka lagu ilaashado min fadligu waxaynu u baahannahay inaynu aada uga taxadarno oo nafteenna aynu ku ababino oo nafteenna aynu aada fiiro gaara u yeelano carruurteennana sidoo kale aynu u sheegno oo runtii haddii arrimahani ay inkastoo qof kasta shakhsiyadiisa ay ku xidhan tahay dadkuna inay 100% ay isku mid noqdaan aanay wax dhici karta aanay ahayn haddana inaka waajibaadkayna saarani waxa weeyaan xusuusin iyo inaynu markaa isku iftiimino iyo inaynu adoo og ayaa haddana lagu xasuusinaya inakoo dhammaanteenba waxyaabaha nadaafadeena dhaawacaya sharafteena wax u geysanaya caafimaadkeenana laga yaabo inay galaafato ama ay waxyeelayso ayaynu haddana mar kasta iyo xilli kasta inaynu awareness ka samayno ay tahay mid waajib ah oo ina dul saaran dhammaanteenba qofka kale waalidkayna dhalay ama aabbayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waad mooday inay training gaar ah u haystaan qaabka loo barbaariyo ubadka akhlaaqiyaaska fiican nadaafada iyo waxyaabaha aad mooday inay runtii oo jaamacada lagu dhigto oo waqtiyo badan lagu lumiyo haddana iyagu si nature oo dabeeci ah u yaqaanaan ayaa haddana waxay tahay mar kasta dhalinyarta oo dadka runtii ubaxa dadku daawanayo ee nadaafadooda iyo caafimaadkoodaba lagu faanayo inay arrintan aad u ogaadaan oo laga yaabo inay goob iskugu tagaan oo rag iyo dumarba ay meel wada fadhiistaan college ha noqoto meel macshara ha noqoto meel la isku yimaado ha noqoto guri ha noqoto arrintaa inay rag iyo dumarba ay fiiro gaar ah u yeeshaan baynu dabcan aynu xasuusinayna fadlan intaasaan idinku dhaafaynaa mar labaad baan waqti fiican in rajaynaynaa la sii wadaaga oo si share gareeya bulshadeena kale iyagana aynu jecel lahayn inay nagu soo biiraan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.